السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك سو دوادا muuqaal cusub. maanta muuqaalkeen wuxuu ku saabsan yahay qaliin qofka ookiyaalka qaato ee loo soo qoray garaadada ah uu kaga maarmi karo, uu isaga dhigi karo asigoo ookiyaal la-aan ah uu magaalka soco karo. qaliinkaas shuruudaha looga baahan yahay dadka lagu sameyn karo ayaa muuqaalkan rabaa inaan idinku soo gudbiyo ilaa dhamaadka muuqaalkan isla socono. markale waa aniga waa Dr. Yaxya u barateen muuqaalada ku saabsan indhaha iyo arag. haddii taa markuu warayso muuqaalada daawada subscribe sar iyo ku xiran tahay muuqaalkeena like sar. shuruudda koowaad ee qofka loogu baahan yahay waa shuruudda ku xiran da'da loogu baahan yahay qofka marka qaliinkan lagu sameynayo ayaa ah 18 sano in uu gaaray. laakiin aniga ahaan da'da u soo jeeday waxay tahay qofka raba inuu qaliinkan sameeyo in uu gaaray 20 jir ama 20 sano inuu gaaro. shuruudda labaad oo qofka loogu baahan yahay oo sameyn kara xaaladan ayaa ah 12 bilood ee ugu dambeysay waa hal sano ugu dambeysay in ay garaadadiisa aynan isbedel oo ku imaan oo 3 bil markii uu joogo uu is-checking gareeyo. macnaha ula jeedo inta uu qaliinkan sameeyo ka hor hal sano ka hor inuu la socdo garaadadiisa. 3 bil markuu joogo uu checking gareeyo 6 bil ilaa hal sano. haddii uun wax isbedel ku imaanin oo garaadadiisa ay isbedelin oo ay sugnaato marka waa shuruudda uu kasoo gudbay. waa shuruudda labaad oo qofka loogu baahan yahay. shuruudda saddexaad ee qofka loogu baahan yahay xaaladan sameyn karta ayaa ah xuubka sare isha ama cornea loo yaqaano. maadaama qofkan qaliinka loo sameynayo la hoolayo xuubkaas sare isha la hoolayo in ku filan garaadadiisa in ay noqoto oo waxaa la sameeyaa garaado walba ay leedahay 1 2 3 in la mid ah ayaa xuubka hor laga fiiqaa. marka in xuubkaas uu ahayn xuub khafiifa inuusan ahayn oo xuub thicknesska ama intuu dhudhunkiisa uu la egyahay in uu weynaado. taas waa muhiim si qaliinka kadib markuu qofka sameeyo waxyaabo kale ama indho qaleel ama waxyaabo kale indho hur ama nabar inuu u nugulaado inaan uu ka badbaado. marka waa muhiim shuruudaas inuu ka soo baxo. shuruudda afraad ayaa noqonayso caafimaadkiisa guud in uu wanaagsan yahay oon sokor uu qabin, sidoo kale waxyaabo la xiriiro difaaca jirkiisa in uu ka fiican yahay, sidoo kale allergy oo kale inuusan qabin aad u daran. sababta waxyaabahaas oo dhan uma fiicna markii qaliinka la sameeyo kadib natiijada ka imaanaysa ayaa ah natiijo aad u liidato. midda kale oo muhiim ah oo midda shanaad ayaa ah in uusan qabin xaalad caafimaad oo la xiriirto indhihiisa inay lahayn, sida shabakada indhihiisa retin loo yaqaan inay fiican tahay oo cudurada ku dhaco shabakada dambe inuu ka fiican yahay uun qabin. sidoo kale glaucoma oo ah isha ku dhaco biyaha indhaha ku fog inuusan qabin waa muhiim. sidoo kale caad inuu indhihiisa aynan lahayn waa muhiim. sidoo kale xuubka sare isha ee loo yaqaano corneana xaaladaha cudurada badan oo ku dhaco sida keratoconus iyo xaalad kale oo xuubka sare isha ku dhaco inuu waxyaabahaas oo dhan uusan qabin waa muhiim. shuruudaasna waa shuruudda ugu muhiimsan oo dhakhtarka indhaha uu ka fiirinayo qofka markaa doonayo inuu qaliinkaas sameeyo. midda lixaad ayaa haddii qofku yahay qof dumar ah in xilli aysan ku jirin cunugeeda nuujinayso, sidoo kale ayna uur lahayn. sababtoo ah xilligaas ay ka baxday kadib waxaa laga yaabaa in ay kusoo laabato marka garaada ayaa isbedel ku imaan karto. marka xilligaas inaysan ku jirin waa muhiim. jirka badanaa isbedel u sameynayo. qodobka ugu dambeeya oo muhiimka waxay tahay ishan waxaa ku yaal pupil ama meesha iftiinka gudbaya size ayuu leeyahay. sizekaas oo ilaa 2 ilaa 5 millimeter ah in uusan ka weyneyn. haddii uu ka weynaado sizekaas oo qaliinka loo sameeyo kadib waxyaabaha qaliinka kadib imaan kara ayaa ah qofka inuu isku arkay qaliinka kadib leerkan guriga oo kale in wareega cad oo kale ku wareegsan yahay, markuu gaari kaxeynayo kale oo darawalyo oo kale, baabuurka iftiinka kale inuu dhibaayo kale. badanaa habeenka ayuu inta badan leerka uu arkaya iftiinka dhibaato badan uu ku qabi karaa. marka inkastoo dhakhtarkaaga indhaha uu kaa fiirin doono waxyaabahaas oo dhan, laakiin waa shuruudo muhiim ah. intaas ayuu ku egyahay shuruudaha ama waxyaabaha looga baahan yahay qofka qaliinka raba inuu sameeyo. haddii ay jirto su-aalooyin kale oo ku saabsan arrintan qaybta commentiga ayaa la wadaagi doontiin. halkaas ayaa muuqaalkeena kusoo ekeyn doonaa.
waxaan idiin rajeeyaa caafimaad iyo indhafiyo.